السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa xasan maxamuud xaaji muuse. waxaan deganahay magaalada danhaq. waxaa igu dhacday masuubo ama dhibaato weyn, ilaahbaa weyne. waxaa la ii soo sheegay in gabadhaydii ay dhimatay, casha xasan maxamuud xaaji muuse. gabadhaasna bisha 21keedii ayaa aniga laygu xidhay saldhigga Delft ee magaalo u dhow danhaq, iyadoo laygu leeyahay waxaad u hanjabtay ama aad doonaysay balangareynaysay inaad disho gabadhaada casha. 2 casho ayaan ku xidhnaa saldhigga. waxay yidhaahdeen 3 casho ayaan ku haynaynaa, waanaan ku baaraynaa, sababtoo ah gabadhaada kale ee Mawaahib ayaa kaasoo bixisay dacwad ah inaad balangareynayso inaad gabadhaada casha disho. kabacdi okay baan idhi, 2 habeen baan ku hoyday meesha, wax baaritaanana iguma dhicin, cid ay wareysatayna ma jiro, waxba laygama qorin. markii dambena waa layska kaa sii daayay. waxaa la yidhi waxaa tahay fasax, baaritaankii waan dhammaynay, waxba maahanad geysan. anigu cimrada ayaan u socday 22kii ayaan doonaya inaan baxo, 23kii baa laysoo daayay. cimrada ayaan qabtay 23kii, wadankan waan ka baxay anigoo xaramka jooga oo cimraysanaya. iyo 28kii maalintii khamiista ahayd habeennimadkeedii 1 habeennimo wadanka Sacuudiga iyo barhkii laysoo wacay. waxaa la ii sheegay gabadhaydii inay dhimatay. ilaa iyo haddana wax wara kama hayo. isla markii 30kii waan soo noqday, 30kii baan soo noqday, wadanka ku soo noqday Holland. markii aan weydiiyey sababta ay u kaxeeyeen caruurtayda, looga kaxeeyey magaaladii ay deganaayeen, hooyadood looga kaxeeyey, cid wax ii sheegtay ma lahan. waxaa la geeyey meel ay yidhaahdeen waa safe house, ama waddankayga loo yaqaano file house. qolada file house dadka ay ka haystay Veilig Plek baan geynaa bay yidhaahdeen, ama geheim address, secret address. halkaas ayay ku dhimatay casha. waxaa la socotay walaasheeda yar Mawaahib, oo ay markii hore yidhaahdeen waa gabadhii aan khiftiga kaa dhibtay. anigu 7 caruur ayaa ii joogtay guriga, 5 guriga ayay kaga tegeen, weliba ta ugu yara ay tahay sanad. 2 waaweyn ee 16 iyo 14 way ka haysteen, 5tii kalena guriga ay kaga tegeen. hadda waxay yidhaahdeen casha waa isdishay, lama baarayo. house artistkii ama house doctorkii in jirkeeda la qalo oo la eego in dawo iyo wax la siiyeyna waa ay diideen. Mawaahib waxay ii sheegtay casha inaan isdilin, 30 daqiiqo ka hor dhimashadeediina in dawo la siiyey. dawadaasoo ay siisay naag la yidhaahdo Vemco oo meesha ka shaqaysa. 5 casho ay meesha ku jireen, annaa Sacuudiga ku maqnaa, ay weliba Vemco dhowr goor isdileen. waxaa kaloo ii sheegtay inaan inantaydu uu isdilin. waxay ku leeyihiin waxay isku dishay capstuk wax la yidhaahdo, ama bahalka dharka la sudho waxa weeyaan gidaarka ku dhegsan. inantaydu dhararkeedu wuxuu ahaa 1.70 m, 16 sano ayay jirtay. capstuga markaan meeshii tagay, gurigii ay isku dishay, waxaa taalay meesha capstuga hoostiisa sariir. suunkii lama qaadin, meesha ayuu yaallaa, dharkeedii lama qaadin. markii dambena waxay yidhahdeen ordo asta, lama baarayo, waa isdishay. inantii kale ay kaxeeyeen, Mawaahibna hadda gurigay joogtaa, wax contact nala soo sameeyey ma lahan. dhibaatadaas ayaa igu dhacday. waxaan u baahanahay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo looyarada Soomaaliyeed iyo kuwa muslimkaaba in la garab istaago, inaan helo xuquuqdii iyo xaqii aabonimo iyo xuquuqii ay lahayd inantayda dhimatay iyo inanta kale ee hadda guriga ii joogto ay ka haysteen. waxaan la yaabanahay sababta ay u kaxeeyeen iyo sababta waxa weeyaan ay hadda Mawaahib guriga u joogto ay igu soo celiyeen. dhimashada inantaydii aad iyo aad baan uga xumahay, inkastoo ilaahay lahaa ka haystay. ilaahay baa iga jeclaaday, laakiin waxaan rabaa inaan cadaalad u helo, waayo waxa aan ku kalsoonahay hadalka inantayda Mawaahib ee ah walaashay ismayna dilin. kuma kalsooni hadalka ay sheegayaan. sifaa xitaa layga qaatay ama ilmahayga loo kaxeeyey waa sifo sharci darro ah. anigoo ogolaanshiyo kama siinin, hooyadood ogolaanshiyo ma ayna siinin, maxkamad ogolaanshiyo mayna siinin, boolisku ma uu kaxaynin. iyagu waxaa kaxeeyey qolada sooshiyaalka. ilaa hadda sooshiyaalka xitaa wax tacsiya kama hayno, information booliska kama hayno. markaa dhibkaas ayaa soo gaaray. waxaan u baahanahay inaan casha cadaalad u helo, aniguna aan cadaalad helo, sababtoo ah 16 sano ayay agtayda ammaan ku ahaayeen, iyaguna 5 casho ayay ku dileen.
marka waxaan u baahanahay Soomaali meel kasta joogto in ilmahayga cadaaladiisa la igala shaqeeyo lawyer cidii caawin karta lambarkayga waxa weeyaan 30031003168445607 waxaan u baahanahay in cadaaladaan u helo ilmahayga waxaan u baahanahay in Soomaali ay garab istaagto waxaan u baahanahay at least inaan helo cadeymo ugu filan oo cadeynaya in ilmahaygu isdishay waxaan u baahanahay inaan helo sababta sidaan la igula dhaqmay aniga la xidhay anigu wax dambiye geysanin haddana la iseekay soo daayay haddana carruurteydii loo kaxaystay haddana ilmahaygii oo dhintay oo laleeyahay ways dilay ilmihii la iga kaxeeyay haddana uu imika guriga ila joogo ilaa iyo hadda waxaa ka soo wareegtay 4 casho wax cadeynana la ima keenin kuwii iga kaxeeyeyna ima imanin wax tacsiyana la ima keenin ilmahaygii xataa lama eegin hadalkii walaasheedii ahaa dawaa la siiyey lama baadhin house doctorkii xitaa codsigii ahaa in la qalo la baadho bal beerkeeda iyo dhiiggeedana waa la diiday ma garan karayo ilmahayga waxay saan igu dhacday laakiin ilaah baa i qadaray waxaan u baahanahay Soomaali inta walaalnimada iyo muslimnimada igu garab istaagaysa inay la soo xiriiraan warkaygana ay gaarsiiyaan cidii wax ay qaban karta wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waan idin salaamay